waxaa laga yaabaa inuu qof inaga naga mid isku qanciyo oo yidhaahdo haddii inagu aan shaqayn weyno oo u shaqayn weyno ilaahay wuxuu doonaya subxaanahu watacaala rasuulku wuxuuna soo gaarsiiyey yacni diintan haddii inagu aan u shaqayn weyno dayac baa imanaya diinta dayac baa ku imanaya hoos u dhac baa ku imanaya yacni halkii la rabay inay gaadhi mayso waayo inaga ka istaagnay inaga ka joogsanay baa laga yaabaa inuu midkeen isdhaho waxaa laga yaabaa mid inaga inaga mid inuu is yidhaahdo dadaalka aad bixinayso ee u bixinayso ummaddan inay hagaagto oo wanaagsanaato aakhira ay badbaadaan adduunkana sharaf iyo karaama ay ugu noolaadaan in diintu ay ku cisoobayso oo sharaf ku leedahay yacni si inay diintu u baahan tahay oo kale yacni marka waxaa dhacaysa qofki inuu san taago inuu maaragtay isla qanco oo isdhaho dee adigaaba wax weeyaan diintu ay ku baahan tahay adigaaba danta dadka iyo aakhiradu ay ku baahan tahay haddaba in fahamkaasi khaldan yahay oo inagu aynu u baahanay diinta iyo diintu aan inaga inoo baahnayn inagu aan u baahanay wanaagga iyo wanaaggu aan isagu inoo baahnayn diintani inay dadka wada gaadho aynu inagu u baahanay yaan iyadu inoo baahnayn waxaynu ka arkaynaa ilaahay subxaana watacaala inoo sheegayo ina leh waxaad ka warantaan waa maxamed waxaad ku tidhahdaa dadka yani waxaad ku tidhahdaa maxamed waad u sheegtaa haddii aabbayaashiin ubadkiinna walaaladiinna ooryihiinna qaraabadiinna xoolihiinna ganacsigiinna intaas oo dhan aad ka jeceshihiin ilaahay iyo rasuulka iyo jihaad ilaahay daraaddii subxaanahu watacaala ah yacni intaasaa idinla weyn oo idinkala weyn ilaahay subxaanahu watacaala idinkala weyn haddii ilaahay badankeeda rasuulka idinkala weyn diintan iyo waxa weeyaan u gargaarkeeda idinkala weyn haddii saasi idinla weyntay fatarabasu iska nagaada iska jooga yacni bal waxaa laynoo caddaynayaa in dadaalkeennu aanay diintu yani waxba u noqonaynin ilaahay wuxuu doonayaa aan waxba u noqonaynin wixii rasuulku ummadda soo gaarsiiyey aan waxba u noqonaynin fatarabasu iska fadhiista waxaa waxa doontaan qabanina si laynoo caddaynin waxa weeyaan dadaalkeennu inaan waxba ku baaqinaynin haye xaggee wax ka imanayaan xataa ya'tiya allaahu biamri ilaahay subxaanahu watacaala arrinkiisa uu keeno wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin xataa ya'tiya allaahu biamri ilaahay arrinkiisa keeno meeshan doonna halkaa yacni hadday dhacdo inaad iska fadhiistaan waxba qaban weydaan oo diintan waxba qaban weydaan oo ilaahay wuxuu doonaya qaban weydaan oo rasuulku meeshii wax weeyaan ummadda la rabiyo wuxuu soo gaarsiinaya aan qaban weydaan ya'tiya allaahu biamri ilaahay baa subxaanahu watacaala arrin keenaya ilaahay baa mucjiso idin tusaya meel kale ayaa la idinka tusayaa dadaalyaridiinna inaanay u istaagaynin waxa aad ka geysateen oo yaraaday inaanay u istaagaynin fikirkiinna aad ku darsan weydeen inaanay u istaagaynin aqoontiinna oo aad kaga geysan weydeen saaxiibayaan halkan waxaan ka fahmanaa aan ka qaadananaa qofku si kasta uu dadaalayo oo wanaagga ugu dhex jiro oo khayrka ugu dhex jiro oo ummaddu inay badbaado oo hagaagto ugu dhex jiro uga shaqaynayo inaanu isla dhicin inaanu isqaadan inaanu isla weynaan inaanu afka taagin oo aanu u fahmin oo u qaadan in diintu isaga wax ku tahay wanaaggu isaga wax ku yahay ummadda iyo hagaaggeedu isaga wax ku yahay may inaga wax ku ah inaga wax noogu hagaagayaan inaan ka shaqeyno wanaagga dadka inaan ka shaqeyno khayrka inaan ka shaqeyno aakhirana dadku soo badbaadi lahaayeen ifkana sharaf nolol sharaf iyo karaamo leh ay ugu noolan lahaayeen wanaagsane waa ilaahay salaam